haddii aad ka mid tahay dadka isoo weydiiyey laadska sida ay sawiro ugu quruxsadaan ama videodada ama dhanka online ka raadiyo maanta waxaan kuu sheegayaa haddii aad videogan ila dhammaysato maalin dambe in aadan qof laad weydiisan doonin waxaad awood u yeelan doontaa video kasta aad daawato haddii uu ku qanciyo kalarkiisa ama sawirka aad ku aragto all social media inaad mobilkaaga kusoo degsato ama screenshot ka qaadato aad kalarka saaran ka xado si free ah oo sharci ah in la yaab kula noqoto balse inta videogan ka dhiman ila joog hadda ayaana bilaabaynaa abka aad jeceshahay ee sawirada aad ku edit garayso dooro ama Lightroom ahaada ama Color ani hadda Lightroom aan dooranayaa aan dooranayaa matalan oo kaleeto sawir aan screenshot ka soo qaado video aad ama sawirkii caadiye Lightroom-ka ayaa sidan soo geliyay marka ugu hore waxaan sameynayaa Lightroom-ka scan colorkiisa ayaan qurxinayaa qaybtaas oo waxaan dooranayaa edit-ka waxaan rajaynayaa inaad taqaanaan adinka hadda matalan oo kaleeto qaybtan oo saturation-ka kala wax yar xoogaa saas ugu soo daraysaa kabacdi waxaan tegaynaa qaybtan oo light-ka kala tegay shadow-ga kaleeto xoogaa yara ka dhimaa highlight-ka kala asigan wax yar inaan ama standard uu kusoo badanaa highlight-kan iska dhib contrast-kana xoogaa yar aan ku diraa ilaa 15 waxay noqoto explore-kana wax yar ayaan kasoo dhimaya marka sidaan dhaho waa qaybtan waa kasoo noqonayaa haddana waxaan tegayaa qaybtan ay ku qoran tahay details-ka haddii aad sharpen u rabto kaleeto wax yar ayaa saan ugu soo darsanaysaa kabacdina haddana calaamadda maadaama aan kan boobsiinayo sawirada waa taqaanaa tilaabta labaad aan qaadayna waxay tahay marka linkigan markaa tegtid marka ugu horreeya meeshan ay download ku qoran tahay ayaa dooranaysaa kan 64 ku qoran tahay ayaa dooranaysaa okay download ku soo noqday markuu download ku soo noqdo waxa ku noqonaysaa hal mar Lightroom ku noqonaysaa sawirkan ay edit gareene ayaa waxa leedahay saddexdaas dhibcood aad tagaysaa waxa leedahay copy setting aad dooranaysaa calaamadaas aad tig leedahay back ayaa dan hal mar taabanaysaa sawirka aad soo download gareysana inta ayuu soo galay ujeedaan marka asiga ayaa waxa korkiisa ku leedahay paste setting ayaa leedahay ujeedaa sawirka sidan ayuu ku noqday sigan waxa leedahay export ayaa leedahay JPEG ayaa u save gareynaysaa waa intaas waa ka soo baxnay haddana isla linkiga ayaan ku soo noqonaynaa hadda marka haday qaybtan hore download ayaa dooratay hadda converter ayaa dooranaysaa waxa soo leedahay wuxuu ku weydiinaa maxay haysaa sawirka kan dambe ayaa wuxuu yahay kii oo anaga aan sameynay waa fahmi kartaa mar walba midku ka dambeeyay sidaan markaa dhahdoo kaleeto automatic file ku soo download gareynaa hadda kor uga jeedaan marka sidaan uu yahay waxaad tegaysaa qaybtaas oo download oo folderska ka tegaysaa oo mobilka waxa u jeedaan lot creator js.cube ka soo jeeda waxa leedahay rename leedahay si aan u isticmaalno waxa ka tiraysaa qaybtaas oo txt.ka ka tiraysaa .pupe inuu dambeeysa laga rabaa okay ayaa leedahay wixii oo dhan waa ka soo wada baxnay hadda waxaan tegaynaa vn-ka ayaa tegaynaa vn marka soo gasho video-ga rabti soo dooro inaad gareyso marka qaybtan dambe dooranaya waxa dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay filter ayaa dooranaysaa filter marka doorato meeshan ay ku qoran tahay add ayaa dooranaysaa okay ayaa leedahay okay marka dhahdid hadda waa u jeedaan qaybtan oo hadda kan ugu dambeeyo aan soo gelin haddii aad xasuusataan aan soo dooranay marka sidan soo doorato wuxuu ku leeyahay meel ma ku darsanaysaa used folder-ka iska leedahay sawirka ugu horeeya waxa ku qornay magacii lat create-ka ee ereyga ah ayaa ku soo qornay marka haddii aad doorto wax ku dhacay fiir sawir video-gaaga saan marka imaado saan ayaa ku quruxsan kartaa haddii iftiinka oo ka bato sidana leeyahay hadda aniga sawirkan ma qurxinin laakiin adiga ayaa maadaama video Lightroom-ka aad taqaanaan si boobsis ayaa idinku tusay maanta wixii ka dambeeyay haddii aad inta step soo raacay laba mar videogan ku ceshatid waxaa dhacaya inaad mar dambe laad adiga weydiisan qof alla qofka doonta videogiisa kortag ama sawirkiisa copy dhaho wax yar ka bedel laad adiga ka dhex samayso waa intaas assalaamu calaykum